على أم حرام بنت ملحان فتطعمه النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام وهو إيمان شري قرق وهو إيمان شري مركزي النبي عمته ديارين جرته عمته قودين جرته صلوات ربي وسلام عليه وحوليه هاي مال المالمها كم إذا النبي أتم صلى الله عليه وسلم النبي أتم صلى الله عليه وسلم وقرق يدي أقو يمت مركزا واحد باللوضي إن النبي صلى الله عليه وسلم تمها أقاها قاتشسو قشنك إيو عييانك تمها قلا أي النبي صلى الله عليه وسلم أقاها قاتشسو أيه باللوضي حديث كذا نواوتك دولنا إن شاء الله تعالى marka gabadh waxay ahayd calaaqad toos ah oo waliba khaas ah nabiga Allah salawaatu rabbi wa salaamu alayhi culimadu waxay ka doodayaan xaraam markii nabigu u iimaanayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo gurigeeda uu saaxanayo oo marmarka qaarkood jirkiisa ay wax ka hagaajinayso yaani waxa weeye nabiga iyo iyada muxuu ahaa dhalab nasab ahaan maxaa ka dhaxeeyay xagee bay maxramnimo ay ka soo gashay ilwaliyaal isweydiinaya culimada qaarba waxbay ku jawaabaan qaar waxay leeyihiin maaha waxa dhici karaysa yaani calaaqa nugmo iyo wax soo kala ah inay maxramnimo ku sugan ay jirto lama isbaatin karayo wax ku tusaya lama hayo qaarkood waxay leeyihiin maya waxa suroobi karaysa yaani waxa weeye inay jirto waxyaabo aan laga warhaynin ama dhalasho ama si uun ku iman karaya qaarkood waxay leeyihiin ma nabiga salawaatu rabbi wasalaam alayhi ummadiisa dumarkeedu jirkooda inuu taabto ama jirkooda inuu taabto xaraamba kama ahayn sidaas qaar baa odhanayo waxay leeyihiin arin nabiga khaas ku abay ahayd ibn hajar baana fathul baariga meela kamida sida ku dooranayo wuxuu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam maadaama ummadda aabbo oo kale uu ahaa dumarka ummadda aabbo kale uu ahaa sida nabiga salawaatu rabbi wasalaam alayhi yaani dumarkiisuba ay ummadda hooyooyin ugu ahaayeen quraankuna sida ugu sheegay marka wuxuu leeyahay waxa dhici karaysa yaani ficlan nabiga sallallahu alayhi wasallam dumarka ajnabiga ma salaami jiray ma gacan qaadi jiray sida sahih bukhari ku sugan hadana maca dalika haday taabtaan nabiga xaraam kama ahayn isagayna khaas ku ahayd sidaas culimada qaar baa qaba oo mas'alada halka marinaya adiga si la yiraahdaba haram radiyallahu anha waxay ahayd gabadhaas nabiga salawaatu rabbi wasalaam alayhi nolosheedu ay aad ugu xiran tahay iyada iyo qoys ahaan yaani reebani yaani wax weeye milxaan oo dhan qissa cajiib ay gabadhu leedahay marka oo nu maleynaya inay tahay qissada keentay dumarku waa badnaayeen saxaabada waxa iyada looga doortay qissada cajiibka ee lahayd waxa weeye waa qissa ay bukhari iyo muslim warinayaan Anas ibn Malik radiyallahu anhu wiilka ay habariyada u tahay ayaa qissada iyo xadiidka warinay wuxuu leeyahay Anas rasuulku sallallahu alayhi wasallam kaana yadkhulu ala ummi haram bint milhan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid u soo gala caadi bay u ahayd inuu u yimaado haram oo u soo galo kadibna ay cunto iyo kolba waxay haysaa ay nabiga siisa salawaatu rabbi wasalaam alayhi wa kanat haram tahta ubadah ibn samit waxay ku hoos nooleedo ay xaas u ahayd saxaabiga la yiraahdo ubadah ibn samit فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نبيغا مالن اسو غلي سيدي عادديسا اهيد مالن بو حرام او يمي النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلست تفلي راسه صلوات ربي وسلام عليه way fariisatay nabiguna wuu ag fariistay waxay bilowday inay nabiga timihiisa salawaatu rabbi wasalaam alayhi ay ka gurto in jirta iyo qashinka iyo wixii ku jiray ay ka saarto ayay bilowday fanaama rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku iyadoo timihiisa hagaajinaysa wuu ku seexdayba waa seexday nabigu sallallahu alayhi wasallam urdu galay طيب ثم استيقظ وهو يضحك nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu